السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روايد السلام السومالي محمد وأنك سعيد شربي إذا السلام عليكم مر لبادي مر صدحات حديتها مركو ugu horeysay horta meeshan aan soo booqato channelka waa channelkaagi waxaan ka codsanahay inaad subscribe ii saarto sidoo kale like iyo share nala wadaagto like waxa waa video meel dheer gaarsiisaa nala wadaag hanaga baqiilin odayga saaka war qeyrasano idin wada horta maalmahan saa ogeedeen xaaladeeda waa ka warqabteen aniga iyo familkaygaba culaysyo fara badan iska jiray alxamdulillah ilaahay idinkiis waxa waaye waxaan rajeynaynaa in aan caafimaad heli doono caafimaadka ilaaha baxsho intaas haddii aan kasoo gudbo saakay waxaan u socdaa safaaradda talyaaniga kolley waxaa waaye aniga waa markii iigu horeysay aan safaaradda talyaani aan fiisa ka codsanayo fiisa aan ka codsanayana waxaa waaye visa multiply entry 1 year aan codsanaya insha allah كل عرقنا إني السيان إن إيدي در أنت وكل أوغان دونا لكن إن شاء الله رجدا وحي أبدان تاي بقول كيبا سجاشن إسجال إن الإسين دونا سببتو وحان ربا عن قرشانا إن شاء الله ذيك مدلح بلاد إن سويسرلاند عن خيمين دونا سويسرلاند عندنا إجسوا قشي مركا وحان ربا إن سويسرلاند حاجة عن إنديو وعن سويسرلاند لح بلاد عن كوها كذا سربيا وحاول لح بلاد وحان ربا إن أجوا عيد لما عن سويسرلاند لح بلاد عن كوها كذا qorsho badan aan leeyahay muraad badan aan leeyahay horta isu duceeyo inuu ilaahay muraadkayga ii fududeeyo saaka safaaradda u socdaa safaaradda saaka dokumentiga weydiisay oo dhan ma soo wada qaadin wax yaraa ka soo qaaday laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa inay ii fududaan doonto aysan igu adkeyn doonin kaliya waxaa wataa hadda aniga insurance iyo waxaa wataa hadduu ilaaha ku idmaayo bank statementigayga soo daawacay oo kaliya marka فيزا سيسبا horta markaad Yurub joogto aad fiisa wadan kale ka codsanayso way iska yara fududahay Afrika markii la joogo xogaa yara dhib badan tahay laakiin Yurub markii la joogo aad u fududahay aniga qaasatan ahaanteeda Saciid Serbia maanta waxaan rabaa inaan ogaado qaabka ugu fudud aan ku heli karo fiisahan fiisa siisaba horta waa la codsan karaa dadka waxay dhahaan fiisa Schengen waxa waa dhib badan yahay dadka qaar waxay dhahayeen fiisa Schengen dad waxa arkay ajansalayaal oo dhahayaan Soomaaliya Afrika meesha rabaan baa joogan dhahayaan fiisa oo Schengen waxa ku soo saarayna 5 bari ama 10 bari horta waxaas waa been fiisa Schengen 10 bari lagu soo saaro huuha waa waxaas yaa lacag lagaaga cunin fiisa Schengen 10 cisho lagu soo saaro adduunka ma jiro ma fahanti aniga anoo Serbia jooga waxa ku qasbanahay laba isbuuc inaa sugo 14 cisho inaa sugo waa ku qasbanahay marka laakiin dadka waxay dhahaan Afrika jooga ama Soomaaliya fiisa Schengen waxa ku soo saarayna 7 cisho ama 8 cisho waxyaabo noocaas sheegan laakiin waxaas waxba kama jiraan oo waa wax bug fiisa Schengen wuxuu qaataa muddo oo qaadana 2 isbuuc markay ugu yaraato Afrika marka joogtidna waa 20 working days waa hal bil sugaysa ma garatay laakiin aniga waxaan rabaa maanta inaan ogaado sida ugu fudud aan ku heli karo macnaheedu ay tahay shuruudaha waxa la weydiin horta ma soo qaadin oo dokumentiga liiga rabo dhan maanan keenin dokumenti yara wada insha Allah waxaan rajeynayaa inaysan igu dhibi doonin ay iga qaadi doonaan muhiimadda waxa waaye wax kale ma ahan waxaan rabaa inaan arko waa markii iigu horeysay aan Talyaaniga fiisa ka codsanayo saa ogeedeen Yurub dhowr mar tagay فيزون شنغن واقعتي فيزون كأقادنا وحي عين سلوفينيا تشيك ريبابليك هذا كور مرات تجي وأوجدين ما أنت تلياني جاربا ما قرأت تلياني جا سأكتهين وحاول وودن إسكا سومال كجبتي كوبدن تهاي نساسة تهاي وحاربا ما أنتنا براويو الفيديو جي ما أنت حق سيا وحكي لما عن سفارة أصلتي دونا شروطها وحي إن رجبا هنتهني وأصل سوود أوجانينا لما أنتنا هدو بقدر دوكومنتي جي أنتو إساري يعني باوركا وكاسا كل جاريا وذا ميد تسكره ويقول يرى عدك تهاي لكن I will try my best إن إذا تصو واستاجد دونا ميل ماشان هاد استاجا مركان استاجو أيان إذا تصها هدي بقدره إن شاء الله حال صعدوا كاميرا كذا لا يكون جيدنا يا أو باركن ماشان إن استاجا سفارة وحير إجرتا يمدوا لكن دوكومنتي وحرة ميل ماشان إن كسي مرو عن برينتر جرايو مركا anyway muhiimadda waxa waaye dadka waxay dhan fiisa Schengen waxa lagu soo saaraa 5 cisho 4 cisho waxaas waxba kama jiraan fiisa Schengen oo 5 cisho ama 7 cisho lagu soo saari karo adduunka ma jiro ma garateen adduunka ma jiro fiisa Schengen oo 7 cisho ama 4 cisho ama 5 cisho lagu soo saari karo haba yaraatee ma jiro almost 2 weeks ina sugto waaye ugu dambeyn odaga safar waaye Saciid Serbia waxaan rabaa inaan Switzerland u guuro guuritaan macnaha Serbia kama wada guuraayo لكن لح بلاد الحين ربع إن نصين دي إن شاء الله سويسرلاند صابته أنا وحواي مهم جدا أهم جيجا إن أنا هرد عمر ربع لكن إن شاء الله قرشة وإيدك سمو جرا مستقبلك إن سربي كجورة وقرشين ويا
sida ugu dhaqsiyaha badan aanan dheereenbo laakiin maanta waxaa u socdaa safaaradda talyaani safaaradda talyaani fiisa Schengen ka soo qaadan doonaa fiisa Schengen waa fiisa multiple entry oo hal sano ah codsanaya marka insha Allah aragno muddada ay qabanayaan waa 10 cisho ama 12 cisho sugi doonaa labo fiisa Schengen marka qaadanaysid qasab way fingerprint waa laga qaadaa dadku waxay dhahan fiisa Schengen far laga ma qaadaa marka codsanaysid waxba kama jiraan baraad aniga hore liiga soo qaaday mar labaad liiga qaaday hadda maanta marka tagayna waa liiga soo qaadaa والله وبالله والله waa liiga soo qaadaa faraha Schengen qasab waa baraad fiisa Schengen dacadsinaysa ayada far laga qaadin habarteeda ka taa ma heli kartid ma garatay marka waxaas yaa lagu sheegin waxba kama jiraan anyway safaaradda tagi doonaa laba waxa yara adag safaaradda markii la galo in telefoon lagu ogolaado yara adag tahay safaaradda oo dhan oo isku mid oo telefoon mamnuuc ka yahay inaad safaaradda telefoon gudaha oo la gasho laakiin waa isku dayanaa inaad telefoonka qarsada isku daya hadii ay suurta gasho marka aan isla daawano aan isla aragno wixii natiijo oo meeshaas ka soo baxa waa ay tusi doonaa hadii ay baqadaro wax yar aan oo dhiman meel meeshaan goonaya oo kaliya odaga gaariyo wada waa ku yar adagta asoo gaari wada hadan inuu wax idin duubo laakiin waa sameynaya ma garatay team Saciid Serbia mar walba waxa jeclaa inay horumar gaartaan ama wax qabsataan war waxa la qabsado fadhiga laga kacnimayo dad yaan wax laga sugin fiisa Schengen Africa marka joogto codsan kartaa way fududahay ma dhibadno laakiin kaliya waxa laga doonaya waxa tahay waa invitation letter inay haysatid laakiin aniga invitation letter leeyma weydiinayo sababtoo ah waddanka deegaana ku ahay oo nin degnaansho waddanka haysta ahay mideeda kale dad waxa jira dadka hor su'aal isu weydiinayeen warniyo Serbia ba joogtaa fiisa Schengen ku codsanaysa degnaanshaha Serbia laguma tagi karo Yurub runta daa idin sheego ama daa rabtiin inay update idin ka dhigo degnaanshaha Serbia laguma tagi karo Yurub oo waxba kama jiraan hadalkii ma fahanteen degnaanshaha Serbia Yurub laguma tagi karo hadalkii misla fahmi misla hayna degnaanshaha Serbia Yurub laguma tagi karo degnaanshaha Serbia kaliya Serbia ku dhex joogi kartaa ma ahanay Yurub da aadis barada qasab waaye ina fiisa Schengen qaadatid ama ad fiisa Mareykan oo xirto wadanka hore noqdo qaadato ku qasbanta da Yurub aadis anyway idinku dheeraanayo insha Allah maanta safaaradda asal tageena laba Bosnia waa idii qorsheena insha Allah inaan tagaan raba haduu alla idmo kulay waxay noqon doontaa Bosnia safarkeyga February xbartankeeda 20 sodonka ama 25 meelahaas qorsheena inaan ku noqdo mar labaad oo aan jaamacadihii waxay dheen July furayna inaan idin noqdo aan soo indheeyeen waa qorsheynaya hadii ay baqadaro oo asla tagi doona ayadan waa ila daawo doontiin anyway idinku dheeraanayo meeshaan galaya fiisa lacagtiisana waa 90 euro fiisa Schengen marka codsanaysid 90 euro waa fiisa lacagtiis fiisa dhan oo lagu sheegayo waa 90 euro oo kaliya way fantay Soma 90 euro oo kaliya dhiibeysa marka exchange office galaya lacag dinar wada waddankan Serbian euro u beddelaya no isku soo noqon doona insha Allah documentiga wada waa kana aniga waxa wada kaliya waa kana passportkii iyo documentiga wada insurance wax kala ma wado fogaad iyo hotel booking wada hotel booking iyo insurance wax kala ma soo qaadin ma faad waxa rabaa inaan arko maanta waxay i weydiin doonaan ama waxay dhigi doonaan sababta marka hore marka codsanay visa Schengen waxa geeyay certificate marriage-kayga inaan xaas waddanka ku leeyahay magaca gaarigayga ku qoran bank statement-kayga inay carruurta magacayga ku qoran wuxuu dhan hageey laakiin maanta waxa rabaa kama yeelaayo systemku waa ku jira visa Schengen hada meel ka qaadato meesha rabta noqoto hada Schengen kala codsanaysid systemku waa ku jirta farahaadii ayaa yaalo marka I will try waxa arki doonaa waxa arkaya insha Allah sidee noqota anyway guys waa baxaya hada exchange office-ga tagaya